السلام عليكم. dadka guulaysta waxay leeyihiin astaamo ama dhaqamo aad u fara badan ay horseedeen naftooda horumar gaarsiiyaan kadibna caalam wax ku soo kordhiyaan. haddaba waxa soo qaadan doona astaamaha iskooda ugu waaweyn. astaamahan adigu naftaada ku dabaq si aad horumar la taaban karo u gaadho. kalsooni waxay odhan karnaa waxa weeyaan inaad u aragto naftaada mid wax soo saari karta ama wax ku soo kordhin karta guulna gaari karta. naftaada marka ku kalsoonaato ayaad hiigsan karta waxaad rabto waana furaha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaadho. Arnold Eshay waxa uu leeyahay hal furo oo muhiim u ah guusha waa kalsoonida, halka hal furo oo muhiim u ah kalsooniduna ay tahay diyaargarowgaaga. kalsoonidu waxay ku siinaysaa awood aad hawl ku qabato, taasina waxay ku horseedi kartaa inaad si dhib yar guushaada ku gaadho. kalsoonidaas oo ku horseeda horumar weyn taasoo kaa dhigaysa ruux ku habboon xaqiijinta hadafkiisa. naftaada aad ku kalsoonaataa waxay kaa dhigaysaa mid wax walba qaban kara. haddii aad naftaada kalsooni siisid waxaad jiidi kartaa ku dhowaad wax walba. oo odhahdii Canterbury, naftaada ku kalsoonow, waxaad taqaanaa wax ka badan waxaad u malaynaysid inaad taqaanid. dadkale ku kalsoonow, inaad dad ku kalsoonaato waa shay loo baahan yahay, maxaa yeelay haddaanan dadka ku kalsoonaanin naftaadana kuma kalsoonaan doontid. iskala ilaali gabi ahaanba ereyga ah kalsooni darro. sheeko xikmadna waxay tahdaa ku hadlaysa kalsoonida. aabbo ayaa gabadhiisa oo yar ayuu dalxiis geeyey si ay u soo daawato beeraha xayawaanada iyo webiyada. iyagoo dul socda buundada ama bridge waxa loo yaqaano kaasuu ku dulyaalay webiga dushiisa ayuu gabadhii aabaheed ku yidhi aabbo gacanta ay qabso si aadan ugu dhicin webiga. gabadhii yaray oo ahayd gabadh Ilaahay xikmad weyn siiyey ayaa waxay aabaheed ugu jawaabtay aabba adigu qabo, maxaa yeelay laga yaabo inaan kaa siibto haddaanu ku qabsado, laakiin kaama siibanayo haddaad gacantaada igu qabato. kalsoonida aad u himayso dadka kaa mudan waxay kaa badbaadinaysaa hadimooyinka weyn. hawl naftaada inaad naftaada ku kalsoonaataa oo aadan cidna la barbardhigin waa jidka guusha. ha ka dayrin weligaa. qodobka labaad, aqoon. noloshaad la deris tahay ha u doodin abidka. mid kaloo ku dayasho ah waa odhaahihii abwaan maxamuud tukaale cismaan. aqoontu waa furaha guusha, waana mid ka mid ah astaamaha loogu gaadho guusha. aqoonta waa iftiinka nolosha, waana miisaanka uu qofku ku kala soocayo guusha iyo guuldarada, samaanta iyo xumaanta. aqoon la'aani waa iftiin la'aan. aqoontu waa anshax, waa edab, waana anfac, waana shay ugu qaalisan oo qof hanto, waana shayga kuu sahlaya inaad gaadhid himiladaada. tusaale, haddaad tidhaahdo waxaan doonayaa inaad noqdo weriye oo aadan bari cilmiga saxaafadda, waad ku guuldaraysanaysaa inaad noqoto weriye fiican. si aad guul ugu gaadho mihnadaada waa inaad marka hore bara cilmiga saxaafadda. raadinta aqoontuna waa sir ka mid ah siraha guusha lagu gaadho. qodobka saddexaad, dhaqan wanaag. haddaad rabto inaad guulaysato waa inaad dadka si fiican u dhaqanto, kana fogaatid inaad dadka kula dhaqanto dhaqamo xunxun. dhaqanka wanaagsan waxa uu kaa dhigayaa mid bulshada uu ku dhex nool yahay ixtiraamaan, noloshiisana ku guulaysta. anshax waa biriishka u dhexeeya yoolka iyo guusha. odhahda waxa iska leh